kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa u soo gudubtay wareegga sideed dhamaadka tartanka Champions League kadib guul u soo laabasho oo ay ka gaartay kooxda Paris Saint-Germain oo ay ku qaraaceen 3 gool iyo gool xilli ay marti ku ahaayeen garoonka Santiago Bernabéu ee magaalada Madrid. ciyaarta oo si dardar leh ku bilaabatay ayaa labada dhinac waxa ay soo bandhigeen kubad la wada jecleysay inkastoo Madrid ay u muuqatay mid raadinayso guul soo laabasho leh maadaama gool iyo waxba looga soo badiyay lugtii koowaad ciyaar ka dhacday magaalada Paris iyadoo dhamaadkii goolka madiga uu dhaliyay kali Mbappe hase yeeshee lugta labaad ay kooxda Madrid ku guusha ku raacday 3 gool iyo gool waxayna isku darka natiijada labada lugood ay Real Madrid ku soo gudubtay 3 gool iyo 2 gool. PSG oo si fiican u bilaabatay qaybtii hore ayaa dardar badan ka sameeysay khadka dhexe iyo garabka bidix ee weerarka waxaana 2 gool oo laga diiday ka dhaliyay Mbappe korinta aanu daqiiqadii 39 saxiixin gool aanu shaki ku jirin oo kubadda ka dhax saaray David Alaba. tii koowaad ee ciyaarta xiisaha badneed ayaa ku soo idlaatay gool iyo waxba oo naadiga PSG ku hogaaminaysay. qaybtii labaad ay Real Madrid la timid ciyaar ka duwan qaybtii hore waxayna la soo baxeen dardar xoogan. macalinka kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti oo adeegsanayay maskaxdiisa khibradda sanadaha badan ayaa 3 badal oo degdeg ah sameeyay si ciyaarta dib ugu soo noolaato kooxdiisa. taka kooxda Real Madrid Benzema ayaa goolka barbaraha ciyaarta u dhaliyay Real Madrid daqiiqadii 61aad isagoo ka faa'iideystay qalad uu sameeyay goolayaa kooxda Paris. isla daqiiqadii 76aad mar kale waxaan la qabsaday garoonka Santiago Bernabéu kadib markii goolkiisa labaad ee ciyaarta u dhaliyay Benzema kaasoo wadnaha jaray kooxda martida ahayd ee Paris. 2 daqiiqadood oo kaliya kadib ayuu Karim Benzema saxiixay goolka saddexaad ee ciyaarta oo ah mid si degdeg ah u heleen waxaana kubad uu Junior la tagay xerada ganaaxa ka xoogsaday Marquinhos oo si khaldan kubadda ugu sii dhabay Karim Benzema oo orod ku soo galay xerada ganaaxa. xidiga reer France ayaa isaga aan kubadda qabanin waxa uu si xeeladaysan ugu darbeeyay dhinaca goolka isagoo ka fogeeyay goolhayaha kooxda Paris. Real Madrid ayaa ku soo gudubtay 3 gool iyo 2 gool isku darka labada lugood waxayna sidaas ku sugaysaa isku aadka wareegga sideed dhamaadka ee la sameyn doono toddobaadka dambe. dhinaca kale kooxda Manchester City ayaa u soo gudubtay wareegga sideed dhamaadka inkastoo ay barbaro gool la'aan la galeen kooxda Sporting Lisbon oo marti ku ahayd Etihad Stadium ee magaalada Manchester City ayaa soo shaqeysatay lugtii hore ee ka dhacay wadanka Portugal oo ay ku soo badisay 5 gool iyo eber waxayna sidaas ugu soo gudubtay wareegga sideed dhamaadka oo ay sugayso isku aadkiisa.